وعن أو ونكسن وحيكوت هيبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته si walbo aad ii daawanayso iyo meel walbo aad iga daawanayso waxaan ku rajeynayaa caafimaad qab insha Allahu tacaala sida aniguba aan u caafimaad qabo halkani waa channelkeena YouTube-ka ee Macalin Muuse sidoo kale waxaad naga daawanaysaan barteena Facebook-ka ee Macalin Muuse haddii uu yahay muuqaalka ama channelkeena markii kugu horeysay waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa inaad subscribe-ta like-ta share-ta aad noogu sartaa channelkeena sawaxanka qeybaha dambe haddii aad maqlaysaan ama uu idin soo gaarayo waa idinka raali gelinayaa waa idinka cudur daaraya insha Allahu tacaala maanta waxaynu bilaabi doonaa musalsal ama taxane wuxuuna ka koobnaan doonaa taxanahan dadku halkay ka soo bilaabatay riyadu dadku maxay u riyoodaan maxay uga murugoodaan riyooyinka oo ay ku riyoodaan iyadoo ay diinteenu ama nabiga calayhi salaatu wasalaam uu dhahayo qofka isaga oo hurdo wax walba oo ka dhaco waa marfuucul qalam haddaba taariikh dheer ayaa maanta inoo bilaabanayso iyo riyooyinkii ugu qatarsanaa ama ugu cajiibsanaa oo ay hore ay u fasireen ambiye haddii ay ahaan lahaayeen ama haddii ay ahaan lahaayeen dad saalixiin ah ama dad mataqaanaya yaqaano sida loo fasiro riyooyinka waxaan ka soo bilaabaynaa oo aan maanta qaadaa dhigaynaa riyadii nebi ibraahim calayhi salaam uu ku riyooday isaga oo da ah markii uu u dhashay ilinkiisii ismaaciil culimmada inta badan waxa ay leeyihiin waxa uu ahaa wiilkan uu ku riyooday ibraahim isaga oo gooracayo waxa uu ahaa ismaaciil intooda badan saas ayay isku waafaqayaan haddaba waxaa dhacday nebi ibraahim markii ilaahay uu siiyey isagoo da ah uu siiyey isxaaq oo haddana uu siiyey ismaaciil markii uu gaaray da'dii la rabay inuu aabbihiisa uu garabkiisa uu ka soo muuqdo oo la rabay inuu caawiyo ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu tusay riyo nebigeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ru'ya alambiyaau waxyun ambiyada riyooyinka ay ku riyoonayaan waa sidii waxyi oo kale waaye annaga taan ku riyoonayna iyo midda ay ku riyoonayaan ambiyada isku mid ma ahan nebi ibraahim calayhi salaam markii inankiisii uu noqday inan xoogaa yaroono madaxa uu soo qaaday ayaa waxaa riyo lagu tusay isaga oo inankiisii gooracayo allah subxaanahu wa tacaala isagoo ka hadlaya wuxuu leeyahay falamaa balaga macahu sacya qaala yaa bunaya innii araa fi lmanaami annii adbaxuka u fiirso waxaa riyo lagu tusay nebi ibraahim calayhi salaam isagoo inankiisa gooracayo bireenayo ma uusan nixin ma uusan mataqaanay gariirin ma aysan ku abuurmin argagax iyo cabsi iyo naxdin ma aysan ku abuurin markii uu soo toosay wuxuu ogaaday inuu nebi yahay nebiyadana riyada wax loogu sheegi karo muxuu sameeyey markiiba wuxuu u wacay inankiisii markaasuu wuxuu ku yidhi inankeygiyow waxaan riyo ku arkay oo la i tusay anigoo adiga ku gooracayo ee sida adiga aad u aragto bal ii sheeg fandur maadaa tara sideed u aragtaa adiga inankiisii yaraa ayuu la tasanayaa waa malaha 15 14 meelahaasuu jira waa xilliguu madaxa uu soo qaaday oo aabbihiisa uu caawinayo waaye maxaa laga filan karaa markaasoo kale wiilkii alla aabba acuud bileyso waxaa shaydaan waaye muu dhaha maya wuxuu og yahay inankiisa inuu aabbihiis uu yahay nebi markaasuu wuxuu yidhi yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min asaabiriin inay waxaan amar ay yihiin markiiba inanka wuu ogaaday in amar rabbi subxaanahu wa tacaala uu ka yimid markiiba rabbi wuu ogaaday inankii yaraa ee ismaaciil ahaa markaasuu wuxuu yidhi aabbow samey waxaan lagu faraayo ya aniguna in shaa allahu tacaala waan sabri doonaa marka aad ibireenayso waan sabri doonaa arkaysaa yaa ka fiican inankaas ka waran aabbahaas ka waran waxaa lagu leeyahay waa inta inankaasi da weynuu ku dhalay isagoo weynoo da ayuu dhalay haddana wamaca haada waxaa lagu leeyahay mataqaanaa markaasi inan kale uma jooginay leeyihiin culammada oo isxaaq iyo ismaaciil waxay leeyihiin culammadu ismaaciil ayaa weynaa idan marka adigoo 90 sano jira ama 100 sano jiro oo mataqaanaa ilaahay ubad kugu arsaaqay
wiilkiina lagu yiri gowrac naxtin ka weyn ma jirto billaahi calaykum waa naxtin aad u weyn qofka aad u gariiraya aad u naxaya aabihii waa uu ku dhaqaaqay arrintii iyada ahayd mindidiisii ayuu soo feestay isagoo diyaarsaday inankiina uu isdhiibay hadda waa xaqiiqo markaani ma ahan riyo inankiina uu isdhiibay ya falamaa aslama watallahu liljabiin mujida markii uu isdhiibay oo dhinaca dhulka uu dhigay oo isku dhiibay uu yidhi aabbaho igowrac maxaa dhacay allah subxaanahu watacaala ayaa min fowqi 7 samaawaati uga dhawaaqay yaa ibraahiimow qad sadaqta ru'ya riyadaadii waad ka run sheegtay waad ka rumaysay ma arkaysaa qad sadaqta ru'ya hee muxuu yidhi weliba ilaahi subxana watacaala wuxuu ku tilmaamay ina hada lahuwa albalaa'u almubiin tani waa imtixaan waa balo lagu imtixaanayey waad ku guulaysatay ibraahim waid ibtalaa ibraahiima rabbuh waad ku guulaysatay ibraahiimow imtixaankii aynu kaa qaadnay waad ku guulaysatay arkaysaa maxaa dhaca marka malag ayaa loo soo diray wafadaynaahu bidibxin cadiim markaasaa waxaa lagu furtay wan aad u weyn waxaa la sheegaa ashyaada jannada ku jiro ee ahlu jannaha ah ama noqon doono xayawaanaadka ahlu jannaha noqon doono inuu ka mid yahay wankan iyo hashii nebi saalaxa ka mid ah wankaanaa ka mid ah wafadaynaahu bidibxin cadiimin wan weyn ayuu ilaahay subxaana watacaala ku furtay arkaysaa idan marka riyada ambiyada waa riyo sax ah wax allaala waxay ku riyoodaanne waa amar rabbi subxaanahu watacaala uu amarkaasi uu soo bixiyey inay sameeyaan la doonaayo haddaba annaga markii aynu nahay dad iska caadi ah oo aan ahayn ambiyo cibaaduraxmaan addoomo ilaahay markaan iska nahay oo kale riyooyinkan ma kaga tusaale qaadanaynaa waxyaabahana loogu sheegaayo mise waa ka soconaynaa maya waa ka soconaynaa riyadu ma noo soo kordhin karto cilmu qeyb wax naga maqan ama cibaado cusubna ma noo soo kordhin karto cibaado joogtana ma naga nuqsaamin karto ma ka amar qaadanayna haddii shaydaan uu noo yimaado oo uu nafaro wax un isagoo isaga kaa dhigayo qof fiican diinta waxaana lagu soo kordhiyey waxaana laga jaray ma yeeleyno maxaa yeelay diinteenu way dhammaystiran tahay alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa raditu lakum alislaama diinan idan marka wax walba oo aan ku riyoono dhacdo walba oo dhacdo oo aan ku riyoono muhim maaha inay dhacayso marka taasi marka waxay nagu qasbaysaa inaanu ka walwalin inaanu mataqaanaaye aanan wax badan aanan ka soo qaadin riyooyinka insha allahu tacaala allah idin barakeeyo barnaamijkan wuxuu hordhac uu ahaa ama maalintii u horreysay uu ahaa barnaamijyo taxanaha oo socon doono oo aan kaga hadli doono riyooyinkan iyo murugooyinkooda iyo dhibaatooyinka dadku waay ay uga murugoodaan ay uga walwalaan waxyaabaha ay ku riyoodaan haddaad mar halkaan nala soo gaartay aad u mahadsan tahay ha hilmaamin subscribe-ta like-ta sharta beritool haddii ilaah yarada ama muuqaalka xigo waxaynu kaga soo hadli doonaa nebi yuusuf ayaynu ku xiji doonaa calayhi salaam insha allahu tacaala intii laga gaaraya waqtigaas waxaan idinkaga tegaya waan idin leeyahay salaamullahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu